guddida iyo xubno ka mida ururka dadka aragga ka naafada ee gobolka Togdheer oo maanta xafiiskooda magaalada Burco ka hadlay ayaa cabasho weyn ka muujiyay barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo ay sheegeen inuu ku gacan sayray marar badan oo ay isku dayeen inay la kulmaan gudoomiyaha ururkaasi indhoolayaasha iyo xubno kale ayaa sheegay inay xaalad adag ku sugan yihiin indhoolayaasha magaalada Burco waxaana intaasi ku dareen inay indhoolayaal badan nolosha ka rajo dhigeen kadib markay waayeen baahiyahoodii asaasiga ah iyagoona baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland bulshada kala duwan iyo waliba qurba joogto inay wax u soo qabtaan waxna loo qabto dawladda waxa jirta qayb wax noo qabatay qayb aan waxba noo qabanin albaabada naga xidhatay kuwa kale aan eegin albaabada naga xidheen waxaan leenahay ilaahay ka cabsada dalka xuquuq baan ku leenahay waxaan nahay dadkii dalka oo la xaadla waxaan leeyahay inay dawladda Soomaaliland ugu horeeyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu cidla nagu eega maahin wax noo qabtaan doonayna in wasiirka wasaaradda waxbarashada wax noo qabtaan doonayna in wasiirka arrimaha guduhu una la xidhiidhaban doonayna in gudoomiyaha Xamse Maxamed Cabdi oo aad cadaadin noo saarayo cadaadinta naga qaado mas'uuliyaddu naga hayo saaninu wax noogu qabtaan doonayna inkastoo cadaadin weyn nagu hayo imka baabada naga xidhanaay markaan soo galno waxaan leeyahay guurtida iyo baarlamaanka Soomaaliland waxaan leeyahay waxyaalo badan bay asixiyaan oo waxyaalo badan khalad yihiin maxay bulshada aragga ka naafada Soomaaliland joogto u asixin waayeen sidii ay waxbarasho u heli laayeen sidii horumar u heli laayeen sidii caalamka uga mid noqon lahaayeen madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan ku codsanaynaa inuu si degdeg ah uga soo jawaabo arrinteeda dawladdii dhexe waxaan looga wakiilaa gobolka barasaabka mudane Xamse Maxamed Cabdi dadku xukuumaanu ka mid nahay hase yeeshee ilaa 2018 bishii tobnaad waxaan u daba soconay oo aanu kala hadlaynay inuu iskuul nagala qayb galo marar badan wuuna warwareejiyay sanadka iyo barka mar waxaan jirin naloo balan qaaday iyo mar nugu dhahay maanta waan maqanahay iyo mar nugu dhahay iska noqda maanta adigu culays far badan baan kala kulanay sanadkan ugu dambeeyay imanka 2020 bisha labaad imanka ee 12 maraysa laba jeer ayaan tagnay labadii jeer gudoomiyaha iyagu wuxuu abaal nooga dhigay in maalinta hore dadkii oo dhan marka la sii daayay dadka ay dhamaadeen ayuu askari ku indhoolayaasha wax haray soo daayay mee wuxuu in yar suga uu soo diyaar garoobay anagoo kadinkii albaabka toban ee qolkiisa ayuu intuu dhaafay soo kana salaamin ayuu gaarigiisa istaadhay halkaas uu naga dhaqaaqay waanu iska dul qaadanay waxna waa dawladdiina waa barasaafkiini insha Allah saaka kaga tagayna waan ku soo noqonay maalin labaadii dadkii meesha tobnaa baa yiri war indhoolayaashaas ugu mudane ama dhalinyarada aragga naafada ka ah inuu sii deeyno inaga sugnay markii askari yiri waa nimanka wala soo fasaxay ma sii daayaan ma nimanka wixii maanta iska noqdo ku dhahay soo deeynina markaan waxaan leeyahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka arrimaha gudahaba kulay qaybta anagu xukuumadda dhaxan ku lahayn gobolka ma hayno cidna qaabishana kuma hayno amurahayaga cid aan sheeganana ma hayno waxaan la yaabanahay ama abaal darro nagu ah dadkii aragga naafada ka ahaa ay waxbarasho ka hadlayay saamina si maanu lahayn wax kale maanu doonayn laakiin waxbarashada xaq u leenahay hal iskuul oo qoraa xitaa furkumaan oo nagala shaqeeyaan lahayn kulay nalama habooneen maanta qarankayaga ama qof xil haya inuu saa xaqayga u ilaawo dhaqdhaqaaq ayaanu nahay hadaan nahay dhalinyarada aragga ka naafada ah ee gobolka Togdheer ku nool indhoweyn waxaan wadan dhaqdhaqaaqyo waxbarasho doona taasoo aanan helin horeysay dambaysataan gobolka aan ka hirgelin hase yeeshee dadaalkooda dhexda u xidhanay oo waxaan ku habeenay maalin baan u soconaynay aanu cid ka soo xaqan ugu leenahay cid ka soo wax nagala tar karaysa aanu magaranaysa lugu tagaynay Maxamuud Xasan Caynaashe ilaahay khayr ha siiyo si fiican noo soo dhaweeyay wada shaqeyn fiican waanu leenahay runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa aan insha Allah tacaala aan u ducaynaya runtii xubnaha madaxda ah ee gobolka soo dhaweeya runtii si fiican la shaqeeya ugu horeeyo maayir Maxamed Muraad runtii waa nin geesi ah oo tawaadacana ah runtii ahna nin aqoon-yahana runtii xafiiskiisuna dadka naafada ah iyo dad kale aanu kala xigsan markastaba uu furan yahay runtii ixtiraam gaarana siiya iyo maamuus gaar iyo soo dhaweyn gaar si fiican u dhageysta si fiican u qanciya iyo insha Allah Maxamuud Xasan Caynaashe gudoomiyaha waxbarashada labada nibood aad ay amaanan yihiin ana waa waxbarashadina intii badneed inamadii baa hadlay dawladda ku wax noo qabtayna waxaanu leenahay waad ku mahadsantihiin deynta wax noo qabana waxaan leenahay daan eega anagu waxaan u baahanay wax nala baro Mahad Cali Goodir Star TV Burco.